fadhiga markuu dhamaaday nin walba intuu jeebka lacag gashaday yoo dhinac u laqaaday wax baa la qaban iyo shaqaalaha dad la qori iyo 30 ruux baa qosolba 10 baa la aadin iyo madenge baa la qori iyo culumaa la qori iyo kudii wixii ajeendadii la sheegay oo dad lagu keen hal laga camal falay ma laho waxa wax ma la fiirsan karo miya nimanka ayaga inaan anaga aan ambaarayno arinta ay nagu sameeyeen inaan isku mowqif aan ka ahayn inaan ka tashanin inay nagu xadgudbeen inta inaan cadeyno baan rabnay inaan shirkan waxaan iskugu yeelnay hadaan qoys Ra'iil aano rag iyo bilcaanba wixii inta nala joogo marka waxaan jeclaan lahayn dadka shirka taga inay noo hormaraan bal wixii loogu yeeray ay noo sheegaan wixii kale odayaalna ay raacaan gafanaha cid u yeeranaya maalinta aan imaanayna maanta ka horeysa gafanaha cid wuxuu ugu yeeranayaa maanta boor baa ku jirtaaye waan isweydiinay weliba boor baa ku jirtaaye inuu ciddi dan u qabto yuu noogu yeerahayaa war maalin horaa qaasin cabdikariim dimaal iskugu keenay kun ku shirin barabara iskugu dhibaye amay ahayn oo danaha annaga aan qabsan lahayn aan naga dayn lahayn ninka nin wax meeshan wax kalaa ku dhex jiraay maya imow subax baan imaaday sidaan oo kale aan umaa imaashada aan imaane markaan soo istaagno meel show dad la qorto baa meesha fadhiya ana qoys baan yaan oday u ahaa qoys baan matalaya reer macalin waa lii yeeray ninka baabuur bila ay dhahan adeerkayga isku maray adeer waxaan rabaa isaaq baan ayaan ku daranay adigu aad maqneed waan ku haynay meesha aad inaad ka hadlin iga hadalkaada ninkaas qaatay bis dhima la hoowaay waan hadli lahaa soo duq saalax ugu arko adna waan ku hay sidoo kale aw shoo waxaan wax la bangay isaaqana dhow sawir baa wala dad ma hadli rabo qad lagu soo dar hadalku waa la bilaabay baabuur adeerkii baabuur baa furay gafana Ra'iil waa sidan Ra'iil waa qabiil waa kan uu sheegay Ra'iil waxay ahayd ila laba nuqta Allah Ra'iil wax u qabo dhay waxba uma qabanin laakiin waxa saala qaban ajeerka aan ku soconay warkoos muu taabanin Reeshi Cabduraale isku dhadhiibeen lix bay Reeshi Cabduraale ay ku hadleen waxa ku jira duqon afar wax isku raacday ninkan inaba gafanaan inaan dhisno sidan inay too amaanta bay noqotay baabuurka waa kii dhaamin noqday saddex nin oo kala hadashay oo mid uu siyaacado duqreen uu raacay u yahay luqad bay raaceen duqana hadlo toos u hadle waxaan waxba ka jirin dibid gafan inaan u taagano alla ilaahay sidana jirta wuxuu taas ay toosin waxba uu naga hirgalaynin waxba aan ku qaadi karin Yusuf Abdul Baal dadkii dad gadan buu noqday tii fadhigii markaan ka hadlo fadhiga anaga diyaar umaanan ahayn maanan ogoleen iidlo waxaan u malaynay magaca iidlo haddaan nahay naasir ayaan isku daanay inuu u joogsado dhibid gafana wax naga hor imaado oo naga reebana ma jirin ninkii asaga gafanaha u taagnaa beeshiisi hadday dido oo nin kale ay raacdo soo dhibkaad ay leedahay waxaan filay nin hadda intuu imaaday yiraahdo rag iyo bilcaanba wax ilaahay unta oo u joogsan ma jiro ama arrintan ka har wax dheer ma jiro waxaan leeyahay Ra'iil beesha Ra'iil waxaan idin leeyahay walaalayaal waxaa jirtaa deg haddii aad degto oo ku abaarsato oo meel aaran ama coos lagugu sheego soo inaad u bedelato maaha ma abaartaad fadhi mise waad guuri anaka xumaan kale ma jirto waa walaalkeen cali buno waa nin caawada Cabdikariine wax xumaan ama wax dhib aan ku aragna ma laha danihii aan u dhiibanay iyo hooshii aan rabnay inuu noo qabto noo diiday maalin horaan ka hadlay dhibkii uu nagu sameeyay iyo wixii dhib aan u marnay ruuxa markuu wax ku sameeyo shaqo aad uu ku qabto ijaar uu ku yahay waqtigiisa markuu gaaro waxa la rabaa ijaarkii inaad nafkii uu kugu lahaa xaq inaad bixiso waxaan u malaynay walaalkay cali bunow maalintii aan dooranay iyo maanta weligaan mar baan dooranoo la dhacnay mar labaad baan dooranoo la dhacnay mar saddexaad imbeed oo la dhacnay intaasaan cali bunow dooranayni hadda kamaana bixin ana qoyska caawda la yiro deginta abaarta haday ku dhacdo Soomaali baa dad jira ana reer Soomaali maana xoolahayna dhanba waxay jiraan Soomaali waxaan waa siyaasadana waa dhaqanka waqtigan maanta joogo siyaasad buu maray waxaan idin leeyahay beesha Ra'iil haddaan nahay shakhsi 2 iyo 3 4 ruux oo dhaqaale haystaan inay ku gataan dhibkeeda ay leedahay waxaan u sheegayaa
ogaadeenka meesha joogo weliba qoyska caawdaaq iidlihii shalay la fariistay iidla kale xilma fariisan caawdaaqa carad ka badna waxaan dhan waxaa la yidhi waxaa waaye qoyska iidla la dhaho mana jirin qoyska iidle ogaadeen baa ku jiraan ku dhihi karaa ogaadeen yaa fadhigaa ku jiray waxaan u sheegayaa walaalahay xishmuha cali bunow wax beesha iidle ahoo diyaar ku e walaalow ma jirto ma ku dhisayno ballan buu iidla qaade qaasan cabdikariim baa ballan qaade waan heshiine waa midaan shalay ka hadlaaye wixii lagaa qaadan ha lagaa qaato ma jirto wax ilaahay untoo lagu dhisi dhibkaa ogaantaan kula marne kuurahaada siyaasaddii aan ku qaadnay iyo sirta aan ku qaadnay allaha naga dhaafo mar dambe oon ku hawo 2 bilood baa ku saartay yaa wax u qaban kartaa 3 bilood miya bisha labaad soo ma horta wixii gambarka la jabin doono baarlamaanka bisha labaad soo maaha bisha labaad baad leedahay wax baan ku qaban maxaad qaban kartaa markii badneed aad wax noo waashay been baa lagu sheegay wixii kula socday iyo wixii meesha kugu imaaday lacag baan laga qaadanay xaq bayna u lahayn lacagta inay ka qaataan waayo ay waa ku daaleen ay waa masaajidkaba kula galeen wax kasta lagu sameeyay beesha aad ka dhalatay waad oo tii ka horeysay wixii ku riday asagu ahaa marka waxaad yeelaysaa walaalayaal iidow waxba yaanan isjala faqin waxaa weeyaan walaalayaal waxaan idin sheegi maanta fadhiga asaga ku qaldan buu ahaa qalad buu ahaa haddii uu dhaga qabanayo xishmuha bunow waxa maqlo oo aad noo dhageysto waxaan leeyahay walaalahay ree iidle yaanan anaga iska dabaguran war niman yahow gambarka uu soomaali ilaahay gambar baa soomaali maxay isku laynaysaa gambar bay isku laynaysaa gambarkii annaga aan u soconin inaan ku fariisano haddaan annaga ku soconin aan islaynayno ma tabar baan leenahay maan mari karnaa waddadii dadka mari jiray marka waxaan leeyahay ree iidow nise iyo rijaal arrintii shalay laga fariistay walaalkay bunow loo tagay intii ilaahay oga qoro waa laga qaatay wixii ilaahay nooga qorana waan ka qaadan doonaa marka sidaa awgeed waxay la tahay arrintaa ha noogu dambayso mar dambana yaanan u tegin hunguri wax ka wangu dilaacshaa wixii ilaahay qorana waan kadbanaynaa walaalayaal intii hadashay run ayay sheegtay aniga odaygii waxaan ahaa ree iidley naani meesha la yidhaahaa yaa liiga soo yeeray arrintii liigu soo yeeray waxay ahayd gafanaha ayaa noo yeerahayaa oo muxuu nagu yeerahayaa gafanaha waa gafahanagi waxaan rabnaa baa la yidhaha u sheeganay dhibkaanagana wuu maaragtay wuu dabooli ilaahay baa wax daboola asagana dantu watuu noo sheegani ninka waa gafana xil weyn buu noo hayaa maaragtay xaqaanagi oo dhan baa ku maqan in aan maaragtay xaqaanagi uu noo siiyo waa mid waajib ku asaga hadduu gafana noo yahay maadaama sidii aan rabna aan ka waynay hadduu noo yeerto waan tegaynaa wuxuu noo hayana waan ka qaadanaynaa laakiin sidii aan ku socday si ka bedelan ayaan la kulmay waxaan la kulma waxay ahayd sidii aan naqaanay nin hadduu kuu yeerto markii lasoo dhaweeyo inuu asaga hadalka qaato uu dantiisa kuu waramo markaa bacdigeed ay dantaada u waranto meeshaa arrinta ay maaragtay ay ka ahaato ma aysan dhicin arrintii markii aan meeshii tagnay wiilalkuwa annaga yaa soo dhaweeyeen ammaantiisana waa ku bilaabeen ree iidle waa ku qaaday dheheen 4 bay isku doomareen iyo 3 iyo 5 way dhannaayeen intaa anigu waan fadhay markay intaa ka baxeen baan aniga kufrookiyaan qaatay ilaah baan ku mahadiyey bacdigeeda waxay jiraan sheegay waxay jira wuxuu ahaa annaka waan kuu imaanay waa noo yeertay maadaama aa noo yeertay kolley egan baahidaana inaad sheeganay tahay baahidanadana buugaasay ku taallaa waxay buugaa ka baxsanna afkaan kaaga sheegaynaa waxaa jirtaa baan dhahay taadii had weli maadan sheeganin taanadii baan hadda egan ani ku dhex jiraa ninkii madaxa noo ahaa intan hogaaminayay
meesha hadda ma fadho meesha ma fadho ninkaa oo naga maqana wax nooma hagaago haddii aad gafanihii tahay ninkaas asaga aad noo baahan tahay ninkaa waa inaa horta taladiisa aad la sheegto ninkaa wuu taloobay annakana waa la taloobnay ilaahay baa shaahidka ilaahay yaa shaahidka ciddii ugu dambeysay cid ree Yaxya yay ahayd niman rees talaacada la dhibay bilcaanta ugu dambeysay urkan ka soo qaaday salaadii doontaan soo mariyay dadkii oo dhan aan isku keenay maxaan raadinay kursigii cawda maanta u taagan haddii aad heshiin maanta wax cilug oo aad dhasheen oo bannaan taagnaani ma leh yaan beer annaga aan leen aan falanayno oo aan egay karto aan ku noolaanayno ahaan baan urday egaan soo galay magaaladan kaadi u laamay waxaan kaadiyay xinjira dhaga habeenkii oo dhan aan sii maray dawladii haday dhalatay galaas biyo waa laga waayay galaas biyo tii hore baan u dhaatay nadiif macaalkan ku hen yaan u dhaantay haddii qaasin intuu gedgediyay arrintii uu noo sahmiyay odayaashii ogaadeen inaan wax la qaybsanay inoogu sahmiyeen ogaadeen inaan wax la qaybsano yay noogu sahmiyeen arrintii intood aan soo wadnay hantidii ku bixaysa burburaysa yaa rag yar oo shaqli ayaa dabay inuu burburiyo eerad waa noola yeeray meeshaan tagnay waxaan la yiri ilmaa shaqan ila siini ilaa ninkaan u tagaynaa ma ogiye sidii aan ku soconay si ka bedel ma u tagnay tagow baan tagaynaa waxa la cali bulo waan ku qaadnay waa intii ile waa kan qaasi cabdikariim baa ku qaaday ilaa ku qaaday ninkii boqorka ahaa keli baa dhahay adagtii ka joogsaday cali bulo wuxuu waxaan sheegaynaa war aan la wadanin oo ahaan boqorkii baa meesh ka sheegay boqorkii yaa meesh ka sheegay oo dheer warkan war aan ku soconay ma aha ninkii na hogaaminay uu maqan qaasi cabdikariim uu maqan yahay warkan war aan ku soconay ma aha intii meesh fadhidana way qabtay saasaa jirtaa annaka arrin ka bedelan baan u tagnay mana ogolin midda ayida meesha shalay aan guurnay qaasin aan ku tashanay tii ugu aan kaaya ninkii markuu imaaday soo fariistay loo sacabeeyey ninkii u horeeyay furay muxuu ahaa ninkan baabuur bilala yihahda ayaa furay hadalkii hadduu furay ninkii meeshii laga horta inuu ka bilaabay wax muu ka bilaabeen ammaan buu ninka horta ka bilaabay sidan baa ahayd kana ahayd kuus baa tahay hadalkii baa horta ninkiiba horta hadalka waaba loo diiday horta ninkiisu u fadhiya wuu yaabe naftiisa hataa ninka wuu yaabe aniga saan u arkay ani fariday aqliyadii fikradayda ninka horta wuu yaabe dadkan wuxuu dhahay adaa u yeertee adaba rabay oo war ay kaa sugaayeeni maxay dadka hadalka ay qaateen dadkan hadalka ay kaa qaateen maxay ninkii asoo yaaban wakti dambe si loo hadlay dadkii ay daaleen yuu ninka hal mar soo istaagay hal markii uu soo istaagay ninka muxuu dhahay hawshii warkiina waa maqlay laakiin waxaad la qaban karo ma jirto saacadda hadda wax la qaban karo ma jirto ileen maxaa la yidhi amin gaaban ereygeeda gaaban soomaali waxay tihi amin gaaban ereygeeda gaaban ileen waqtigii had la sheegay maxaa ka dhiman maxaa la yidhi 8 bilood baa ka dhiman maxaa la yidhi ninkii ma artay laga dhiman jiray muxuu yidhi geeri u yaqaane ninka had marka wuxuu arkay inay maarata arrintii gabaabasho ay tahay egaa muxuu qabay nin amin gaaban ereygeeda gaaban marka meesha waxaan ka arkayay waa maartay dadkii maarta si la sheegay niman maarta oo maarta adeerhayna maarta walaalahana oo yar oo shakhsi un baa rabay maartay arrin ay maarta ay wateen inay ku fushidaan waxaan ogaanaysiin reeidlow dan u tasho haddaad tashan wayso ninkoo aad daba socotana weligaa meel ma gaaraysid meel ma gaaraysid annaga dad baa noo yeertay horaan ballan baan la galnay wax baan ku tashanay wax baan ku heshiinay naasirna inta qodobka u dambe maanta u dambe waan daba soconaynaa ama aan la dhacno ama aan ku helno ani hadda dhereero ruux baa lii soo diray ani nin kale nimankaas u yeeraa la dhehe islaanta iyo socota idhaga umaatay hadda nafaas kuubaana mar kale nafaas ku heli doonaa la dhehe ani ninkii kalabo wuxuu dhaagi daba hadan waxay tiri casarka bay la hadashay markaad soo noqdo nimanka wanaad ii keentaan rabaa weligeed magacey muu arkin maxatus baalka buu ka dhex arkay waa walaalka annaga ma aynayno waxba kama sheegayno waxba uma dhimayno laakiin kuura uma hayno waxaa way suncaddana la iskama dilo suncaddana waxa suncadda dilhiyana waa dad yar waad garanaysiin kolba dadka asaga horgeeda lagu xidho dadka waa dad yar
dadka horgeed aan iskaga qabanno qaasan ree iilow aniga waxaan laaliyo qaasan way dambayni hadda waxaan kaa lahaynaa ma qofkii ree iilaan kaa lahaynaa dadka asaga aan iska ilaalino horaana wuuna soo dhumiyey haddana wuuna dhuminhayaa waxaan u malayni markaan gaal ugu noqdo galasweynow iyo saaqa inta yaa maalkayna la daldalhaya darradna waxaad aragtaa samayseen haddana ragga barkiis waan joogu ba leeyihin ani haddaan joogo maba ka hadleen kamaale baan dhihi lahaa ninka horta meeshaa tage waa cewaala ani qoyska ma hadlay laakiin waxaan ka hadlayaa shay saksi ah oo maaragtay jamac baan ka hadlayaa ma dhahay qoyskaasaa xun iyo qoyskaasaa fiican fiicnida iyo xumaanta xag ilaahay bay ka jirtaa waxaan rabaa ree iilow dadka asaga oo darra dhalinta qoraxda ku dhameeyey iila kelima ahan dadka meesha tagay sidaan maqlaani dadka waa la dhammaani gaare waxaan rabnaa duqa duurka noogu jiro ilmaha duurkii u gelin ebel haddaad ugelaysa egan indhaan yeelana markan kan baadiyaha joogo iyo kan joogo magaalada egan indhaan la yeeshe waa la fariistay cudulahan baa loo tagay waa la wada hadle egi haddi waxaa aslam garabkaa ninki walaalka haddi wax soo qaado inaad garab u noqoto ma ficno mow inaad madax ka laabato ma ficno soomaali waxay tiri nin baa wuxuu dhahay lax baa limin raa'isa oo laga meeshay dhigaysa lugaha ugu xeerataa cawdaq maxaa ka dhiga libiib lugooyada way xun tahay cawdaq ciyaari baa tiyaari cawdaq cagaha isku duwo casay iyo rata 20 jiro cawdaq oo matii carruur saaran lahayd ma ahee marwaan bee lalama taga manfacaan bee lala tagaa annaga haddii ilaah yidhaahdo waxaan ka sheeganay calibunow waad ogeedeen ninkan waa ninkii labawanka ahaa imsaa laban uu ahaa cawdaaq oo dhan qalinka uu qoro wax qori ma lehe ninkii asaga ahabay dhul ku dhufteen asaga inacs maratay ay u heshiiyeen hadday u heshiiyeen ilaahay baa raalli ka noqtay meel yar baa la geeyey niman baa ninka abuur bila la dhaho waa walaalka anag iiloo jiifo u dhaho wakaa tugan buu wuxuu dhahay ani iila bas bogaya kii baa daraal minaq noo dhahay ma ogelin ma yeelayno ani calibino wax ku sheegay cawdaqna wax ku sheegay nin kaloo wax ku sheegay ma leho waxaan rabaa adigaa isku filneen ree ilow intanoo magayga baad yaad qabtaa nise iyo rijaal dhaladooda nin intuu naqumiyo na yidhah sacan iyo xoodey aan maale ninkii noogu weynaa ilahay baa weyne waan ceebownay wixii soo baxana asaa jeeb gashaday muruma meesha saan u tahay nin baan ku dhammaanay waa qaarkeed waxaan ka dhici gaarin dhab ma maqli annaga qaasin haddaan nahay waxaan u malaynay meel bay noogu xihan tahay calibunow qorone ceeb hadduu qabo anama ceeb ma yeelayno waxba ma kor saarayno ninna ma rabo saacaddan wax rabo ma leh war ma rubaa mase waa been calibunow yaa ninka doonaan rabo ha sheega calibunow gacad kor u qaada wixii doonaan rabo ani wiil buu ii qore dhegaysta wiilku ii qore waa jaamici aad buu u koreeyaa 20 kun buu ku shaqayn karaa mase 15 kun buu ku shaqayn karaa waxaasuu ilmaha annaga noola horjoogsaday maanta ninkuu qoro haddii maanta uu ku dhowaan ku qori been madow buu ku sheegay dowladda dhan baaba dhici rabtaa intuu ku qori intuu ku geeni ninkii ka cabsooni ha ka cabsoodo ilaahay weynow baan ka cabsoonaya ani ilaahay baan ka baqaaya bini aadanka ma baqay war 4 ruux keliha yaa diree iila gadate diyaar ma utiina nimaan walba niila gate war diyaar ma utiin waxaad yeelaysiin wiilkaas maantii u gogladay waad ka saysiin ogaadeen absamugu yaa u goglan inaan galno soo diyaar ma nuho والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصل وانيك أخرج بالله إنه مارته دبيت قفنا مركا دولة نو سياسة نو والبمال كتاواني مركا أنا وحيلا تاي وحي دار رجع لقلت بها وحي على قصون نقطة وركنا واسكو سيد إنك أوش هاي وما كول قبنا عليك واسكو ويلك قاسم عبد الكريم تاجر ويلك قاسم عبد الكريم تاجر أنا قاعد أقول مرة أنت قبلنا وبناير كلا ريبانينا يان كلا ريبانينا وحن إذا شاقينا إيلو وركب ما أنت داعي
oo maanta nin walba maanta iidaa allaylehe laga gata laleeyahy middaa iyada ma ogolin mana rabno mana rabno nimanka ha ka soo noqdaano cali bunow agtii waxba nooma yaallo mana yeelayno haddaan qaasin nahay ogaadeen baan la xidhanay kamana soo noqonayno fartaada xumaatay fadhiska ama hartay tira haddaa soomaalida waxaan codsanayaa haddii aan gefki waa bini aadan baan nahay malaa'ig manihin mascuun baan nahay walaalayaalow qaasin cabdikariinow waxaad jeceshahaan kula jeclahay meeshaad ii qaadaanna diyaar u ahay qaasin cabdikariin kama maan bixin waan gefkaas habeentaas inaad iga qaadaan oo alla iyo rasuulka ka soo baxde qur-aan 114 qur-aan cadadiisa iidla xasan ka soo baxde intaasaan sabeen idinku xidhay qaasin cabdikariin daatiin Upon Royal Hotel waa horyaalkii hoteelada waana lodge aad ka helayso dhammaan adeegyada aad u baahan tahay yaa salaam sariiro gogol qurxoon oo single iyo double leh saami ugu gamaadiyo ay si qabowgii saxansaxo lamoodiyo internetka aadan sulugeyn xawaarihiisu sareeyo calaashan high speed iyo TV flat screen oo akhbaaraadka caalamka kala socon karto ayaa qolkaaga ku suran Upon Royal Hotel waa lodge aad u qalabaysan waxaana ku sugan shaqaale u diyaar soo dhaweynta macaamiisha haddii ay baahi ku qabato meel dheer adigoo aadin telefoonka qolkaaga kugu xiran ayaad wacaysaa isla waqtigaasna waxaad dalbato waa lagu keenayaa waana hadda isii haddana oo waqti badan ma qaadanayso cabitaano qabow cunto dhadhan leh ayaad ka helaysaa Upon Point Restaurant oo qaybta sare ku taala ha ka reebin lodge-ka waxa uu leeyahay masaajid oo qaybta sare ah oo aad salaadaha ku tukan karto lodge-ka Upon Royal Hotel wuxuu macaamiisha ugu bishaaraynayaa adigoo meel fog jooga ama safar ka soo socda inaad buug garaysan karto adigoo soo wacaysa telefoonka shaashada kaaga muuqda ha ka reebin Upon Royal Hotel waxa uu leeyahay elevator ama wish la raaco neecaw udgoon iyo hurdo raaxo leh ugu imow Upon Royal Hotel Upon Royal Hotel waxa uu ku yaalaa magaalada Garissa gaar ahaan daarta Naivas ee wadada Kismaayo Road ka soo horjeedka isbitaalka weyn wixii faahfaahin ah oo intaas dheer kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda